تريقويا طبتي دينتي فرقانو وحتى جرين كتلدي سيلو محمد يا رسول الله محمد محمد يا حبيب الله محمد مغانتادا نهايا يا محمد جوهر ويو حق اللو سوجيهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه ودرسي جاني لغا يكرم بيسين في تفسير القرآن الكريم كالرضي مع الموضع الطلب بعشر كتالة جميل وقصة سنة تاريخ نورولات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سيأي طفق مسلم كأه أي يقول نقطة ضيشة فكوحي نقضى نجينا تاريخ نورولات نبينا أمرنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر روح كستو رجاك دمعسن آخرة كد يشهد رسولك أيوب بدبالية سندياك إيو برشلونة إيو هو ربك كد يشهد ذلك فائدة بل كد يشهد ذي جعيل كودا ولا صح حاضرين يا إياه المرء مع من أحب يوم القيامة روح كستابا وحول صح حاضر يا قيامة كو جعلاي وكو يجري قف آدم جعلاي وسلسلابي كرتا ما كو دايان كرتا ما يا سؤال بان دوشتيني عبورتين وحينو بحنا مقعيد المسلمين إنه مير قبل مقعيد قالوا وما بحنا وتشوني هنجري وما بحنا وما حيث وقته دينها وينو نعمنا جعل بينهم قبل قفك أشهي مقعي سوى الله بحنا قفك أشهي حبدك كيسات قضيتها قفك أشهي صدوق طلاب صدوق أيات سلسلة وضع فركا قضيشة قالسك ياليال وحي ku dhaxalsiinaysaa in qalbigaaga maxaba u gasho gaalkii mar haddii qalbigaaga gaal maxaba u gashana iimaankaagii meesha waa ka baxaya ilaahay baana taa anfiyey wuxuu yidhi laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhiri yuwaadduuna man xaada allaha warasuulah qiyaastaasuu ilaahay nasiye halbeega abidkaa haddaad taariikhda dib u raacda baa ilaahay leeyahay arki maysid qof iimaan kaamila leh oo gaal isu ekaysiinaya laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhiri yuwaadduuna man xaada allaha warasuulah qof ilaah iyo rasuulkiisa la collaytamay baan ana salsalaabayaa yoon ku dayanaya dhaqankiisa iimaankaad haysataan iimaanka saxda ahayn haddii aanad taariikhda rasuulka waxba ka garanayna waxaad kaga dayataba ma lihid sidaa darteed waxaan doorannay inaan taariikh nololeedka nebigeennii dabagallo waxaynu qaadanaynaa calayhi salaatu wasalaam intii aanu nebiga noqonin sidii ilaahay u soo xanaaneeyey iyo waxyaalihii mucjisooyinka ahaayee ilaahay uu ka muujiyey noloshiisa waxaa la yidhaahdaa ambiyada ilaahay intaanay nebiyaalka noqonin waxyaalaha khaariqulcaadaha ah ee ka muuqda irhaasaat ayaa la yidhaahdaa irhaasaat ayaa la yidhaahdaa markay ambiyada noqdaan mucjisooyinka ka muuqdana waxaa la yidhahdaa mucjiza dadka awliyada ilaahay waxyaalaha khaariqulcaadee ka muuqdana karaamaa la yidhaah marka ambiyada ilaahay intaanay ambiyada noqon waxyaalaha la yaab kale khaariqulcaadee ilaahay uu ka muujiyo maxaanku dhaha xaggooda irhaasaat bay af carabiga ku yidhaahdaan irhaasaat annubuwa sidii maalan ba nebiyullaahi muuse oo kale calayhi salaatu wasalaam aa wada garanaysaan ilaahay markii muuse uu fircawn u gacan galay oo ilaahay uga afqabtay
dumarkii kale oo dhan naaskooda ee markii sanduuqa lagu riday rabbi intuu badbaadiyey halkii uu ugu talagalay sanduuqu uu ilaahay keenay ilaahay uu ka qariyey ninkii fircoon ee carruurta qali jiray xataa lama ogaanin hooyadii markay umushay in la ilaaliyo nebi muuse dhalashadiisa waxaa la yidhaahdaa 660,000 oo carruura oo dhalatay oo reer bani israa'iil baa la gowracay liajli inaanu muuse soo bixin ayaa 60,000 oo carruur ah baa loo gowracay oo sabiyo markaa dhashay oo la iska ilaalinayo inuu muuse dhasho iyada oo dadaalkaa lagu jiro oo muuse la ilaashanayo baa ilaahay u leeyahay calaa raqmi anfika yaa fircawn adoo sandulle ah dhaqaalahaaga ku bixi gurigaaga ku kori waa muusahaad carruurta u laysay sababtiisa halkii fircoon gurigii fircoon buu kusoo barbaaray oo weliba naaskii hooyadii ayuu lacag ku bixiyey hooyadii muuse dhashay ayaa guriga fircoon iyo maaliyaddii qasnadda fircoon baa laga quudinayay muuse 30 sannadood marka waxa weeyaan khaariqul caadaha ambiyada intaanay ambiyada aanay noqonin ka sii horeysa wax ka mid ah marka nebiyullaahi moxamed isagoo sabi yar ah baa waxyaalo waaweyn oo mucjisaada baa laga arki jiray tiibuu wax yaroo kooban inaga siinaya maa akramahu allahu bihi qabla nubuwati maa shaygii akramahu allahu ilaahay uu ku sharfay bihi nebiga qabla nubuwati nebinimadiisa horteed intaan loo caleema saarin ka hor waxyaalihii la yaabka lahaa ee ilaahay u hirgeliyey kow awalu minxatin min allah minxa waxaad inta badan aragtaan iyadoo la yidhaha minxa daraasiya aqoon bilaasha ama deeq yani waxbarasho marka minxa af carabiga waa deeq weeyaan awala minxatin deeqdii ugu horreysay oo min allaahi xagga ilaahay laga siiyey nebi moxamed waxay ahayd maa xasala wixii u hirgalay oo min albarakaati barakooyina calaa aali xaliimata sacdiya ehelkeedii barakooyinkii ilaahay siiyey markay nebi moxamed qaateen isagoo sabiya aladiina aalkaasoo kaana uu ahaa mustardacan mid laga dhigay mid agtooda yani mid nuuga fiihim dhexdooda mustardacan mid la nuujiyo fiihim dhexdooda maalintii uu nuugmada dhexdooda u dhexgalay ee xaliimatu sacdiya ay qaadatay istirdaacuna waa nuujinta maalintii uu nebiyullaahi moxamed gacantii xaliimatu sacdiya ehelkeeda galay ay nuujiyeen barakaadkii ka muuqday kowdhe faqad kaanuu waxay ahaayeen reerku qabla xuluulihii intaanu soo dhexgelin binaadiihim golahooda intaanu iman naadigu waa meesha golaha ah marka waa reerkooda intaanu iman bay ka wadaan mujdibiina dad aad iyo aad u abaarsaday bay ahaan jadbigu waa abaarta xuluulkuna waa soo dhexgalka faqad kaanuu waxay ahaayeen aala xaliimata sacdiya xaliimatu sacdiya ehelkeedu qabla xuluulihi binaadiihim intaanu golahooda imanin mujdibiina dad aad u abaarsaday bay ahaayeen isaga ka hor falamaa saara baynahum markii uu ahaaday dhexdooda saarat waxay noqotay hunaymaatuhum adhigoodii yaraa hunaymaat waa la tasgiirinayaa markii ay nebiga uu u yimi ee ay soo qaadatayba adhigoodii yaraa wuxuu ahaa ta'uubu ay tarjicu way soo caraabi jirto way soo noqon jirtay min marcaaha halkay ka soo daaqday ayay ka soo laaban jirtay wa ina adraacaha iyada oo maxaanku idhaahdaa candhadoodu tasiilu labanan iyadoo candhadu ay caana ka tifqayaan oy ka da'ayaan darar waxay ka qabaan markaasaa caruurta kale la canaanan jiro lo odhan jiray war meeshan adhiga xaliimatu sacdiya ay ka soo daaqaan maxaad u soo daajin weydeen dee isku kob un baanu daaqaynay bay carruurtu markaa tidhaahdaa waa barako ilaahay uu soo raaciyey reerkan qaatay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam adhigooda yari marka uu soo laabto ku soo gurya noqday soo caraabaan ta'uubu markay soo noqoto adhigooda yari min marcaaha meeshay daaqi jirtay adhigu markuu ka soo laabto way soo noqon jirtay wa ina adraacaha iyada oo
candhadeedii xoolahaas la tasiilu ay dareerayso labanan caanay tifqayeen wayarxamu allaahu allaha u naxariisto albusayri wadaadkii la odhan jiray busayriya shaacirkaa xayثu yaquulu fii hamsiyatihi markii uu shicirkiisa hamsiyada ee alifku koobka uu tirinayay oo sideedaba gabayga soomaaliga waxaa laga miisaamaa xagga hore iyo xarafka lagu bilaabayo ayaa laga miisaamaa carabtana waxaa laga qiimeeyaa hooriska dambe beydku wuxuu ku dhammaanayo ayaa lagu qiyaasaa oo xagga dambey ka wada miisaaman yahay carabiga waa inuu isku xaraf ku wada dhammaadaa xagga dambe oo isku xaraf ku socdaa marka waxaa jira gabay uu leeyahay busayri oo hooriskiisu yahay hamza waxaana la yidhaha markaa hamsiyatu lbusayri baa la yidhaha hadday nuun ku dhammaatana nuuniyatu fulaan baa la odhanaya hadduu xa ku dhammaadana xaa'iyatu fulaan baa la odhanaya gabaygii xada ku dhammaanaya hebel tiriye gabaygii nuunku ku dhammaanaya hebel tiriye gabaygii alifku ku dhammaanaya hebel tiriye markaa gabay alif ku dhammaanaya oo nuuniyatu busayri la yidhaahbaa waxaa ku jirtay beydkan waidaa sakhara alilaahu unaasan lisaciidin fainahum sucadaau waidaa sakhara hadduu ilaahay u fududeeyo oo u sakhiro alilaahu ilaah unaasan bini aadmi hadduu ilaahay u soo xerogeliyo lisaciidin qof liibaanay fainahum iyaguna sucadaau way liibaaneen haddii ilaahay qof liibaanay uu kuu keeno adiguna waad liibaanaysaa waidaa sakhara alilaahu unaasan hadduu ilaahay u sakhiro dad unaas waa dadka lisaciidin qof liibaan wata hadduu kuu soo galo oo dad ilaahay u soo geliyo fa innahum iyagaasina sucadaau waa kuwa liibaanay oo liibaantaasay wax ka helayaan uma acqaba daalika intaa waxaa u soo raacay uma acqaba alcuqba waa cidhibta ayaa cuqba la yidhaahdaa waxaa deedna arrinkaa ka dambeeyey maa xasala wixii dhacay min shaqi sadrihi in laabta la qalay wa ikhraaji oo laga soo saaray nebiga xadi shayطaani sadkii iyo jibkii shayطaanka minhu ee xaggiisa ugu jiray qof kasta oo bini aadmiya ibliisku wuxuu ku leeyahay saldhig buu ku leeyahay ama jib yar baa ugu jira qalbiga bini aadmiga qof kasta oo bini aadmiya jib uu kula xidhiidho satellite-ka ibliiska alladii yuwaswisu fii suduuri الnaasi jibkaa yar qalbiga bini aadmiguu ku jiraa dabeedna sawdka ibliiska ayaa mudabdabaad baa la soo raacinayaa hirar markaasuu ku soo afuufaya boomkiisa waxaa maqlaya qalbigu markaa uu ku ta'aura uu ku raadoobaa nina shayطaankuu iska naara dabadeedna uu iska jaraa sawsiida kuma taabatid qofka aada doonayn inaad ka qabato telefoonka waa sidaasun qofna siduu ku taabtaa iblis halkaasuu kaga hadhaa waa ila waa fulaygaase qofna telefoonkuu ka qabta haye halkaa ina mari sidaas yeel uu hagaa dabadeedna markaasuu ku ridaa waddada uu doonayo marka qof kasta waxaa qalbiga bini aadmiga ugu rakiban jib yarbaa ugu rakiban oo ibliisku leeyahay jibkaa adigaa catili kara oo siida ku taaban kara ama adigaa ku raaxaysan kara oo ka dhegaysan kara dabadeedna wuxuu kuu dhisayaa khayaaliyaad shayaaiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura jibkii caynkaa ahaa ee qalbiga bini aadmiga ku rakibnaa nebigana waa ku rakibnaa calayhi salaatu wasalaam wasladaa yar ee sawdka ibliiska soo qaban jirtay isagoo sabiyahoo caruuroo 4 jira ayaa laga saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaa dhuunta ilaa iyo xuduntaa la jeexay operation lagu sameeyey waanay muuqatay calaamadii jeexdintu markii uu weynaa way muuqatay nebigeena calayhi salaatu wasalaam wax ilaahay agtiisa la qariibsan karana ma aha in ilaahay qofka uu u soo diro malakul jibriil daqiiqada operation lagu sameeyo oo beerkii wadnihiisa lala soo baxo oo la kala furo oo dabeedna wadnihii laga saaro halkiisii lagu celiya isagoo la maydhay 2 jeer baanay ku dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu la joogay xaliimatu sacdiya 4 sannadoodna uu la noolaa ayaa jibkaa ilaahay ka saaray 2 malag buu u soo diray malakul jibriil iyo mikaa'iil
labadaa malag baa operationkaa wada sameeyey markiiba way oodeen markiiba way xidheen bardhiigiina kama soo dhicin bardhiigii kama soo dhicin ha qariibsanin waxaan anigu garanayaa si qaraabadaasi kaaga baxdo hargeysadii hore masaajidka imika calimataan la ilaa sameynaa arag guryo yaryaroo waxaa ku yaalay dhismo yaroo gaagaabana waa hore weeye waa 60 iyo 7 iyo 6 meelahaas ilaa meelahaas nin hindiya wuxuu ka shaqaysan jiray furshaanta berigaa furshaanta waxaa laga samayn jiray cudbi baa furshaanta inta maro lagu talo baa furaash laga dhigan jiray marka in cabaara lagu seexdo cudbidu way isku dhegi jirtay dabadeedna inta maro cusub la soo iibiyo cudbidii dib looga daadin jiray waxaa lala dhici jiray bir yaroo siiq yar baa lala dhici jiray markay furfurato ayaa dib loo cabayn jiray markaasaa si yaroo qurux badan haddana furaashka loo cabayn jiray nin farsamadaa yaqaanoo hindiya ayaa joogi jiray ninkaasu wuxuu sameeyey wuxuu xidhiidh la lahaan jiray jimanka ayuu xidhiidh la lahaan jiray dabadeedna wuxuu tegey sayladii hargeysa berigaas waxay ahaan jirtay halkan tiyaatarka iminka uu ka samaysan yahay baa aroortii saylad ahaan jirtay sayladaasu wan ka soo iibsaday wankii ayuu geed ku yaalay guryahan masaajidka agtiisa ayuu ku xidhay wuxuuna u niyooday inuu jimankiisa u loogo ayuu ku niyooday dabeedna isagoo wankii u xidhan yahay ayaa waxaa soo gashay siyaaradii jimca barkhadle sheekh yuusuf alkowneyn siyaaradiisa raxmatullahi caleyh dadku way tegi jireenoo way ku dambaabi jireenoo waxyaalo aan sharciga ku banaanayn bay samayn jireenoo maxaan ku dhahdaa xoolaa lagu qalqali jiray oo haddii rabbiga xukunkiisa dhagaxaan baa lagu fadhiisan jiray oo dumarkaa lacag lagaga qaadi jiray dhagxaanta in lagu fadhiisto oo waa tii ninkii muriidka ahaa dhagax weyn baa halkan yaallo wuxuu odhan jiray waa dhagaxii sheekhu ku fadhiisan jiray markuu xerta waxu aqriyayo oo dumarka dhali waaya ayaa kuyuu usoo gala dhagaxa intay marada iska faydaan ayay dhagaxa ku fadhiisan jireen laakiin muriidkii oo meesha joogaa lacag la siin jiray marka islaan dhali weyday adduunna aan haysanin ayaa sanadkii soo wareegayay bay waxoogaa soo urursato rubiyad bay soo heshay rubiyaddu waxa weeyaan shilin iyo sumuni ayay ahayd kuyuuna waa lagu jiraa dumar badan baa dee raba inay dhalaan oo dhagaxa ku fadhiistaan fursaddiina way ka cidhiidhideen intay kuyuuga soo gashay cidhiidhiday bay dhagaxii si qasaba ugu fadhiisatay markaasuu yihi keen lacagta markaasay rubiyad u dhiibtay lacagtii buu yaro saluugay markaasuu islaantii intuu ka dul hadlay buu yihi ma kula tahay rubiyad baad wiil cad ku dhali kula tahay rubiyad baad wiil cad ku dhali doontaa marka waxyaalo caynkaasaa loola tegi jiro haddii caruur la doono sheekh waxaa la weydiisan jiray sheekh yuusuf haddii marka wuxuu ninkii hindiga ahaa wankiibuu wuxuu geeyey siyaaradii yuusuf alkowneyn buu geeyey halkaasa wax lagu qalqali jiray waxay odhan jirtay soomaaliduna sideedaba meel aan qabri ahayn sadaqadu kuma baxda bay odhan jirtay meel qabri oon bay wax ku qalqali jireenoo ay nadar u geli jireenoo ay ku gowrgowraci jireen oo waa tii raxmatullaahi caleyh xaaji aadan afqalooc oo markaa carabaha dee joogi jiray oo tawxiidka wax ka yaqaanay waa kii arrinkaa markuu waddanka yimid buu la yaabay afartaneeyadii dadkii oo xabaalaha uun ku balaysan oo hadday wax qalayaan xabaalu dusheeda ku qalaya oo hadday doonto hilibkii oon cidiba cunin haada looga tegayo oo dadkii magaalooyinka joogay agoontiina ay gaajoonayaan marka gabayadiisa waxaa ka mid ahaa agoonta iyo masaakiinta oo loo arxami waayo indhoolaha gaboobiya habraha agab la-aan jooga iyagoo agtiinnii ku qaday oo anfaco waaye hadba meel nin lagu aasay baa adhiga geysaane ma ogolo sharcigu xaalkan oo waa anfiyayaay miyaydaan aqoon diinta waa ku andacootaane diinta waa iska sheegataane
meeshii lagu qatanaana adhiga waa ka kaxaynaysaan meelaan cidiba joogin adhiga waa ku qalqalaysaan war mee miyirkii iyo islaamnimadaa sheeganayseen yaanan marin habaabine ninkii odayga ahaa wankii wuxuu geeyey xabaashi gabalkii markuu dhacay oo aqalkii hoosta ka xidhay kelidii baa markaa guriga degan ayaa junuuddii uu ugu ballan qaaday wanka ayaa gurigii ugu soo gasho faamalaydhka uga soo gashay waxay yidhaahdeen toos si cayaana loo toosiyey waxay yidhahdeen mee wankii aad noogu ballan qaadday inaad noo qasho isagaa ka sheekaynaya markaasuu yidhi wallaahi dee siyaaradii baa iga soo gashayoo waxaan damcay inaan idinkana wan kale aan idiin soo iibiyo sidaasaa niyaddayda ku jirta laakiin idinma qadinin markaase waxay ku yidhaahdeen wankaad naga bixisay baridiisa wan lihiba adduunyada ma joogo wankii aad qashay baridiisii wan lihiba ma joogo xaggeed nooga keeni maxkamad baa lagu saaray bay yidhaahdeen maxkamaddaasi waxay guddoonsatay ilkahaaga oo dhan in la guro ninka nala socdaana waa dhakhtar 36 ilkoodba waa lagaa saarayaa 36 iligba miisaa lagaga guray miiskaa loo wada saaray 36kiiba xabad dhiigina kama iman markii waagu beriyey isagoo afla oo ilkihiisina halkana buu soo toosay mudduu afla-aa ninkii hindiga ahaa deedna maalin dambe habeen dambe haddana u yimaadeen waxay idhaahdeen maxkamad rafcaana ayaa lagu sameeyey ilkahaagii originalka ahaa cidima samayn karayso laakiin waxaanu go-aansanay inaanu ilka sadafa aanu kuu gelinno hargeysana dhakhtar dhantiistiimaba joogo berberaa ugu dhow wax dhakhtar ilkaada waxay idhaahdeen berberaanu tagnay waanu soo qiimaynay ilkahaaga labada sadafba intay noqonayaan waxay noqdeen 6 shilin ayay noqdeen 6dii shilin wataas sahaydaadina wataas orodoo berbereylka ka soo gasho berberuu tagay ilka sadafuu lahaan jiray sidii buu ninkii ku dhintay marka ilkaha ka gureen xabad dhiigi kama iman waa makhluuq weeyaan waxaan sidan samaynayaa ee ilkaha ka guraya ee ilkihii xataa dhiig joojin intay u sameeyaan baan bar dhiigi ka soo dhacay fakayfa rabb alcaalamiin bal qiyaaso maxaad u malaynaysaa operationka ilaahay xaggiisa ka socda ee malakul jibriil samaynayo way ku taallay calaamadii jeexdintu nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam kowdhe marka waa la jeexay nebiga maqsadka loo jeexayna waxa weeye markaskii iyo jibkii ama maxaanku idhaahdaa yani maxaan idhaahdaa satellite-kii aqbalayay sawdka ibliiska ayaa laga saaray qalbiga nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaanay ahayd calaamadihii ka horeeyey intaanu nebiga noqon uma acqaba intaa waxa raaca uma acqaba daalika intaa waxa raaca maa xasala wixii dhacay min shaqi sadrihi in laabta loo dilaaciyey wa ikhraaji xadi shayaaiini iyo in meeshii laga soo saaro sadkii shayطaanka minhu uu nebiga ku lahaa qalbigiisa walaysa hada bilcajiib arrinka caynkaasa in nebiga la qalo oo wadnihiisa laga saaro oo laga soo gooyo intaa wax lala yaabo ma ahan marka loo eego calaa qudrati اllaahi tacaala awoodda rabbi markaad u eegto faman istabcada dalika ninka arrintaasi ay la fog tahay oo lama yeeli karo laho kaana qaliila nadar aragtidaadaa gaaban laa yacrifu waxba kama yaqaano qofka taa diidani min quwati illaahi shay-an quwada ilaahay baan waxba ka garanayn lianna maxaa yeelay kharqa alcaadati caadada oo laga gudbaa lilambiyaai ambiyada darteed looga gudbaa laysa bilamri lmustaxdath arrin cusub ma aha wala lmustaqrab wax la qariibsan karo aan dhici karayn ma dhici karto la odhan karana ma ahan ambiyada ilaahay mar walba waxyaalo caadada ka baxsan waa loo arki jiray almuxdatha waayo bilamri mustaxdath ma aha arrin cusub oo uguba wala lmustaqrab arrin la qariibsan kara ma aha dhacdooyinka ambiyada ilaahay uu ka hirgeliyo xaggooda casharkeenna maantuna halka haynoo joogo iga taginay محمد يا رسول الله محمد
محمد يا حبيب الله محمد مغانتادا نهايا يا محمد